السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن ملكستو جوكتان هل كاني وكافتانكي سياسة وأن برنامج كان أي سومالي بدن حسيان ملكستو أي جوكان هذا باب برنامج كان قروح بدن أي سومالي بدني أي حسيسو أيها وحا إسكسو دبردا صونا الديارية وعلي حراري بل هذا علي حراري أيينو وحنو ويدين دونا بالبرنامج كا وحا وإنوها يبال مانتا iyo kaftanka siyaasadda Ali Soodah way aad iyo aad baa maasantay yaasiin waxaan markuu ugu horreysay u mahad celinayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee meel kasta oo ay joogaan barnaamijkan ku xidhan oo daawada runtiina feedback jawaab inoo soo celiya oo aan sheega in barnaamijkani uu qanciyay wixii talooyina iyo wixii tusaale ah waxaanu idinka codsanaynaa mar kale in emailkeena aad nagu soo hagaajisaan kaftanka siyaasadda@gmail.com nago shaashada idinku soo qori doona وين تضغط كده ويد رير أرجع وكوي نوصل حديدي فيديو كليبس نوصل دري صح أي كواحد لين برنامج قفكو رأيي سو مدح بناي سيدو ضنا هو واحد له صح ما خص من ولا برنامج هو ونكسين لكن أدبر وما علينا عدي نسوق جالسيسا جواب فيديو كليب أي صدر كلام وأي برنامج كواحد لين صح وحين ما هذا علينا سجنا نين مكان نوصل الدونا أو إنه جواب كهاللي قبل كساحل مقالة بربرة هي وايه نكو على عاقل محمود عيسى قسالي هي شيف عاقل وشيف عاقل محمود عيسى قسالي هي بل سيده هو اركو قسالي برنامج كفتك سياسه aynu isaga wada daawano barnaamijkaas waa barnaamij aniga igu dheer waa barnaamij aan aad u xiiseeyo barnaamijka la magaciisa kaftanka siyaasadda وأنا شيف عاقل محمد سعيد موسى بوليد غزالية كان من وقاش الله نبرت كل أبتسط وقال لنا قبل الصاحب أم السوماليان في جنهان قبل الصاحب واحد بشوية غير سوماليان ملك استيجوغان wherever they are علي برنامج كاسوا برنامج صلبي يقوم يخون وقع الدنيا كتيرة نبقى بجيسك أفريقيا سوماليلاند كلك الشمال إثيوبيا كلك الشمال الصومال كينيا بوتلاند كفتن كاسوحة وكان حقائق يوقع كتيرة حتى الغوطاس أبان مقادرة بشكل روحان كبه بادية inay si wanaagsan uga xiriiraan oo ay xiriir joogto ah la yeeshaan kaftanka siyaasadda على aad buu la dhacay marwanaaya aqalku barnaamijka waa soo dhaweey barnaamijka aad buu soo dhaweynaysaa isagoo waliba wakiilka ah dad far badan oo la qabo asxaabtiisa ama gobolka uu ka soo jeedo waayahay aan gudagal barnaamijkeena yaasiin ducalo horta maxaad ku qosashaaniyo ya علي waxaan ku qosay barnaamijka dad iyo badan ay laftoodu ay aaminsan yihiin barnaamijkan oo dhan baa wada qosol miidhan tani waa shaqo waxaan samaado ku qosla horta dad badan waxay soo weydiiyaan warninkii yaasiin wuxuu ku qoslayaa marka aakhirka waxaan markii dambe wali malaan ugu qoslayaa waayahay waxaan tagi doonaa magaalada Hargeysa nin waxa jiray qoys ka soo tagay oo fasax uga soo tagay magaalada London wadanka Ingiriiska waxay yimaadeen magaalada Hargeysa صح qoyskii ayaa reerkii hadana dadku wada qaraabo iyo ehel reer kale oo martiya oo Djibouti ka soo xaga baxay ayaa iyana la yara digid haye saqdi habeenada kamid ah ayaa loo soo dhacay ciidamo inankii reerka mas'uulka ah oo Liibaan la yiraahdo ayaa qori lagu qabtay haye tolo wuxuu sameeyay haye وارن أدق عيالك واسسين دمرك سريري بكبودين يوضا يدي تبيتو وحال سريته مسيبه وين بعد عضي يا دعضي ليبان ولا لا تجيو ميل ولا لوري وحال ليبان oo ka tirsan xisbiga kulmiye sidaba adigoo reer hebela xisbiga wadani buu ka tirsan adigoo reer hebela sidaba xisbiga wadan oo gashay reerkiinu kulmiye iska leeyeen degayn
bashareereen baa loo degaya weli waxaas oo kale maartay waa ciidamadii waa ciidamadii baa waxaas ciidamadii la doonayay inay shacabka nabadgelyadooda ka shaqeeyaan oo ay xaaladaha dejiyaan oo xisbiyadan iyo waxan iyo muranadooda ayagu ka dhex baxaan ayaa dadkii qoriga ku qabanaya oo leh sidee ba adigoo reer hebela marka wuxuu ku leeyahay niyo anigoo reer hebela ayaa haddana xisbigan jeclaystay aan doorashadayna marka dadka waxaan ka fikiray intaan kelibka daawan dadka aan reerka lagu sheegayo libaan ahaynba to waxay geli doonaa iyagu meel ma haysto libaan weliba intaas ku fikiraya hadduu meel kale ahaan lahaa qaban lahayd gudaha la dhigaaba bal libaan horta yarka aan daawan bismillahi raxmaani raxiim anigoo ali madax cigaal mas-uuliyiinta xisbiga wadane ka tirsan ayaa habeen hore 1:20 marka saacad ahayd gurigan anigu aan deganahay famigii dadkan iyo halkan joogaa tani gabadha tahay kana inankaga yahay oo dalka ingiriiska ka yimi muwaadiniin ingiriis ah ayaa lagu soo daatay ciidanka booliska Somaliland gaar ahaan saldhigan Doordo waanu yaabnay dumarka iyo carruurtaas aqooniyada xalaga qabtay anagaba halkan daaradana la wada keenay gurigii waa la baaray dhinaca kale loo fatashay xitaa dumarka qaarkood inay sharmada qaateen bay u diideen marka wax dhaqanka iyo diinta iyo bandimada tolo ku fiican may sameeynin markaasi waxaanay nagu haystay wax qaran ma ahayn wadani xisbiga wadani way ugu haysteen ninka taliya ay soo bareeray baa guri marka soo sheegay kuuri walaalo danin ciise musoo raacadaale orimo lihin waxana waa iskaga dambeeyay oo laga xisaabtami doona wuxuu guri raacadaawada dad aqli wanaagsan baa leeyahay waxa wadani ka doontay ku geeyay meelan habala walahayn maxaad soo taageeri weeyay saasoo abuday ila hadlay si bareeray ila hadlay markii damaanay oo ka haysteen saacad ku dhawaad saacad ay meehay mirmirinayeen kadib guriga soo celiyay marka cidii tii arinta sameysay wala ninka waxa ku dhacay dib wark ninkii la ka yimi waa ka waran waaye booxn eeg doona islaan hooyo kamida qolada inuu Djibouti ka yimi reer Djibouti waa reer nabadeed moogta reer nabadeed dagaal ma qoryo iyo bastoolada iyo waxa ma arkin dabeetana saqdi dhex markii loo soo dhacay bal islaanta iyana waxa gaaray aanu daawno عليكم أنا وحنا قبل جبوتي كتمد ومرتيا habeenkii baa reerka ku soo degnay anagu hurdadii nala tagtay oo iska daalan baragi oo qoriyeen nagu haya oo na dul taagan bilaa shalmad bilaa gogaradaan ahayn waaba naxna wadnihii baa nagiriroonay intii kale garab hurday wadnahaaba dhici gaariba ana aamusnaan buu wadnihii igu gariro waan yaabno ficilna nala soo diririyo hay hoostaan la keenay aqalkii baa la baaray dadkii baa la wada baaray inankii guriga mas'uulka ka ahaa baa la kaxaystay portable-kiisii laptop-kiisii wixii oo dhan baa la qaatay maxay 5 telefoon way qaateen dibadda la tageen markii dambe saacad iyo barba inankii haysteen aniga hurdadii naga guurtay waxa laxna lagu haystay garan weynay reerkii waagi sidii nagu bariyay marka sidaas oo kale waa yar foolxumo ceeb weeyaan waxa weyn qof shakhsi hadii la haysto waaga barigiisa la sugaa oo qofka shakhsiga la kaxaysta laakiin reeradan u badan hurda dumarkii wada qaawan ina waliba mid baaf lagaga noo geysto yiri na abihi wasay darkii ni abihi boosa soo baxa oo balaayo nagu dhigay waaba naxnaanaga qori dadka lagu dul qabta Djibouti ma arkin أنا والله أما كنا عجبنا جبتيك ما صارت ويا حسبا كمية ماستر أبو دارنا بسم الله يا حالد سعادة هذا إن سكو كرسون هذا أي أنا إلى قمن أو ضد كنا أكو كسبان نبض يونك لكن أنت سقط الحلا صدعيه محل ولا سوى روت الورن واي سو كعريرك النبض كصوت صار وراد حسبا كودا ما هي ريركي نميل بالوش شيء هالك كدبت كدوسعو يتصحت ورر المغالب marka tan oo kale wax la oran karaya waa argagaxiso qofka marka la terrorist gareeyo waxa weeyaan argagax baa loo geeyay damage ka gaada ilmaha yar yar maskaxdooda waxa ka mas'uul noqonaya dadka waxaan ka dambeeya sax waayahay wali ilbaxnimada aan doonaynay iyo horumarka aan dadka la doonaynay wali uma dhawa laakiin dadka qaar baa moodaya dhaliisha markaynu sheegayno in macnaheedu ay tahay inaanu dagaal ku wadno meel gooniya taas xaasha lillah waayahay qoyska
intaa aynu kaga tagno haye waxaan eegi doonaa safaaradda Soomaalida ee waddanka Malaysia ayaa dhibaato dhalinyarada ardayda wax ka barata ayaa arrin inoo soo gudbiyay dhalinyaradu waxay leeyihiin annaga jaamacadaha iyaga la xiriiri jirnay oo fiiga iyo iska bixin jirnay oo haddii ilaahay ku refiisiyaasha raadsin jirnay oo lacagaha dee ardayna waa taqaana waa dhaqaale yar safaaraddii baa iminka na soo dhex gashay haye safaaraddii waxay doonaysaa ardayda lacag ka samayso marka dawladdu bay la hadlaynay jaamacadii waxay yidhahdeen cid aanan annagu soo approve garayn oo shahaadooyinkooda tasdiiq rumayn ama xaqiijin ku soo samayn abadan inaad jaamacad siisaan markay ka ogolaadeen ardayba dhinac u hadleen waxay yidhahdeen ninkaan intaa bixin oo dollar ciidina u tasdiiqi mayso ciidina odhan mayso inankan waa inan jaamacaddiisu ay sax tahay la socda xisaabtii baa ardayda ku gooday qaylada ka baxaysa wiil ka mid a ardayda wax ka barata Malaysia oo nagu mahad celinaya sida fiican uu nagu soo gaarsiiyay codkiisa ayaa ma hayno sawirkiisii laakiin codkiisa aan kaga bogano bal waxa jira السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله ياسين دعالة عاري حلالة أدبني سلامة إذن كي دمان بهذا برنامج مقعي هو عبد الشكور محمد وحانا أرضي كنول ودن كماليشيا وحانا أرضي ذا كديغتو علميقا نقالها عن كل ديارينا PhD ودن كماليشيا وحان كنولهاي وحان كدو 9 سنة إلى 10 سنة walaal waxaan jeclahay in aan la wadaago walaalaha Soomaaliyeed dhibaato la soo kulantay ardayda Soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa anagoo codsiga dhankeena ka imaaday inaan codkeena gaarsiisiin dawladda iyo mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya oo u horeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha wasiirka waxbarashada wasiirka arrimaha dibadda xeer ilaaliyaha guud ee qaranka dhammaan hay'adaha qusayso arrintaas oo dhibaato aad u baahsan oo weyn oo ardayda Soomaaliyeed iyo waddanka Malaysia ay jaaliyada guud ahaanba ay kala kulmeen safiirka cusub ee waddanka Malaysia oo Soomaaliya u jooga waddanka Malaysia mudane safiir Abuukar Cusmaan Mardadi ama loo yaqaan Mardadi safiirka oo sidoo u imaaday go'aamo iyo muxuu ahaa qarashaad dheeri ah ardayda Soomaaliyeed ku soo kordhiyay oo aan garan la'aanahay sababta oo ardayda Soomaaliyeed oo wax saas u badan aan haysanin qarashaadkaas iyo dhaqaalahaas aad faraha u badan dokumentiga safaaradda uga baahan in loogu bedesho ama looga qaado walaal Yaasiin iyo Cali Xalaalo ardayda Soomaaliyeed Malaysia saa ogtiin ummad Soomaaliyeed ummad wax haysata ma ardayga Soomaaliyeed ma arday lamid ah ardayda Sacuudiga ama Qatar ama Imaaraadka ama Suudaan ama wadamada Carabta ama wadamada adduunka oo scholarship ku joogo waa arday laga yaabo hooyadiisa oo suuqa bakaaraha ama laasqori ama Hargeysa ama beedawo caano ama hilib ku gado ama huudi ku gado $100 ama $200 loo soo dhiibo ardayga u badan Malaysia $300 bishii loo soo diro waana ardayga u lacag badan ka waran walaalo warqad shabad ooga baahan ama shahaado shabad ooga baahan ama warqad dhalasho ama warqad go home hadaa ardayga looga qaado $200 oo aan garanayna sababta looga qaado walaalayaal saan ognahay waan shaqaalaha horwadeenada safaaradda aan ka ogaanay safaaradda budgetkeeda 3 bilood hal mar loo soo diraa saan naga maqalnay mishaarada kirada guriga ku jiraan operationka wax walba operationka budgetka ku kici lahaa dhammaan qarashaadkooda wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda maaliyadda Soomaaliyeed 3 bilood wallahi waarin aad iyo aad murugo loo leeyahay ciyalka jaamacadda loo soo diray in lacag la weydiiyo سمع iyagu kumaan dollar qaadanaya safaaradda meel baan la gashay meel kasta way la gashay oo safaaradda ka shaqeysa safiirka Malaysia ee Soomaalida iyo qunsuliyadda waxaan u gudbin doonaa in ay ardayda ka khafiifiyaan xisaabta faraha badan leh iyo culayska ay dusha ka saarayaan oo safaaradda weligeed iyada tasdiiqi jirtay laakiin xoogaa yar oo gunaa ayaa dee la saaraa in haddii xisaabtii la badiyo oo ardayga culays badan la saaro inuu waxbarashadii ka tago ayaad ku dhiiri gelinaysaa oo ay tahriibaan صح
marka mas'uuliyiinay ama safaarad jooga ama muqdisho jooga oo ama hargeysa jooga ka daaya please ciyaalka dhalinyarada ee idinku aad ku khasbaysaan inay tahriibaan ajaayib waaye muqdisho u duuli doona haye gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mr Jawari ayaa soo jeediyay in ra'iisul wasaaruhu uu dib ugu noqdo wasiiradii dhawaanta ku magacaabay maxaa dhacay talo wuxuu waayo ra'iisul wasaarihi wuxuu waxaan hayaa 160 xildhibaan oo diidan arrintan ka soo horjeeda haddii marka mooshin ka la dhigo meesha dawladda waa dhacaysa inta goorgoor tahay wax iga sax soo saxbaalka dabeetana ra'iisul wasaarihi ayaa hoos la hadlay wuxuu was naqaana Soomaali baan nahay 160 iyo hawlahan iyo cabsiiska iga dayo maxaa rabtaa wuxuu yidhi iyo wasiirka maaliyadda Soomaaliya naga bedel positionka annaga iskale naga dhig haddaan nahay digli milis waaya waa qabyaalada sideedii waa qabyaalo qaawan waaya gudoomiyadu laba kaard buu isticmaalaya kaarkan Soomaalida marka kalena kii localka ayuu isticmaalaya marka wuxuu yidhi nin fargeeta la yiraahdo fargeeto oo digli milis ka tirsan ayaad nagu bedelaysaa isaga ka dhigaysaa ajaayib weey hore ajaayib sidee buu nin reer boormi u noqdaa beyle weeye ninka markaa wasiirka beyle naga bedel oo fargeeto noogu bedel marka lama eegan iyo beyle bal aqoontiisa waayo aragnimadiisa daacadnimadiisa Soomaalinimadiisa inta miisaankiisa waxa kala weyn boormu ka yimi reer boormu waxba kuma lamla ma jiraan dastuurka lagu qoro reer hebel ayaa positionka iskale iyo reer iskale dawladana waxa ay dawladii lagu dhawaaqay la yiri imika qabyaaladii waynu joojinay Soomaalinimadii wanaageedii dalka iyo dadka marka ninkii reerka u weynaa ayaa halka maray dabeetana inankii ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku adkaystay anu wax bedel maaye mooshinka hal codeeyo Jawari markuu arkay in la codeynayo habeenkii iska saxday ma wuu gooyay gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ayaa codkii qaadaya codkii baa la qaaday wixii meesha joogay 15 qof ayaa diiday 15 kaliya 15 kaliya ayuu la waayay markaa wala waayo adigu xabada la waayay xabada markuu arkay in isqabsatay ayuu xariif hadana soo kaco uu bogaadiyay wuxuu yidhi aad baan u faraxsanahay in 200 iyo intaas ay ra'iisul wasaare ay ku codayaan anigana nin hadal badan mihiyo waan arkay in media Soomaalidu warbaahintu ay barihan boo ay lahaayeen Jawari baa isbaaro dhigtay anu ma dhigan isbaaro nin oday baan ahay waxaan iska fahamsanahay waxaan diiday in Soomaaliya kala qobo almuhim waan ku hambalyaynaya marka waa Jawari wadana shaarkii Soomaalida gashaday kii fargeeto xagga dambe ku tuuray kii Soomaaliyeed buu gashaday ayuu leeyahay marka hadii laga dhigi lahaa meesha la yiraahdo wasiirka arrimaha maaliyadda wasiirka maaliyadda hadii beelo laga qaadi lahaa oo fargeeto loo dhiib lahaa ma taqaana dhibaato uu noqon lahaa qabiilka ma madaxweynaha waa farmaajo maaliyaddiina waa fargeeto wala isku cunaan xisaab baa ka socda soo xisaab samcan farmaajo ile fargeeto baa lagu cunaa ra'iisul wasaaruhu fahmay markaa in halka xisaab ka socoto ma beelahan u daabilada hada beelaha gada waligeedna markaa bal waya aan daawano Jawari oo markan isbaraxaya gudoomiyaha waajibaadkiisa waxaa ka mid ah inuu u dhaqmo si dhexdhexaadnimadaas waxay keenaysaa in badan waxyaabaha qaarkood inuusan ka hadli karin waxyaabahan aad baa waxaa looga hadlayay miidiyada iyo isgaarsiinta bulshada iyo shabakadaha qaarkood mashaakil iyo waxyaaba aan waxba ka jirin ayaa intaas socotay mana hadli karo waayo haddii aan hadlo barlamaankay saameynaysaa marka weligay intii hadda aan guddoon soo 4 sano oo soo dhammaatay waraysi laba ma bixiyo waraysi waayo dhinac hadduu hadlo waxaa laga soo saari karaa inuu dhinac u janjeersaday marka dhexdhexaadnimadii aan dhumaysa waxaa jiray shabakado oo maarata been iyo mashaakil iyo wax aan jirin iyo khuraafaad ku hadlaayo oo dadka marin habaabiyo waxay ilowsan yihiin in mikrofoonka ay haystaan iyo qalinka ay wax ku qorayaan odag waa qayli okay هو
ولعس أي أيام صوص عطا هي على عصب السياد مدحوينها هيرشبل ها أي هذي هي وحوش قبل كيسين ورتا عن لو هذا الهينبا لو هذا هيبا ودبات هيرشبل إنه تشربه لا مودي بكله قبل ذيك كلام بلا شيء يعني ميو كايجا يا كايجا waxaa ku dhacay waa balsad qaadilay haye dabeetana si loo barto wuxuu kaaraan iyo hurwa oo banaadir ka tirsan annaga gobolkayga ayaa iskale dagaalkii xuduudaha dagaalkii xuduudaha ka dhacay haye gudida xuduudaha Soomaalidu waa in loo qoondeeyaa oo la eegaa oo la baaraa hurwa iyo kaaraan ba si u soo socotay inta xamar soo dhaaftay ayaa annaga noo soo gashay asaasi marka annaga iskale haye dekedeedina waa cilmicaan haye arrimaha xuduudaha iyo badaha heeg hada heeg ayaa lagu qaadaday wakaas lagu ballamay war dhibaatay war ku xooganta ayaan darada Soomaaliya haysto waxa kamid ah Soomaaliya oo sheegan jirtay NFD iyo Ethiopia dhulbeelna fara badan oo xuduudaheeniba waxba naga maqan imika iyada isku maqan wala tariyada isku maqan imika iyada isku maqan Jowhar iyo Banaadir ayaa imika laba dawladood kala ah xaamisan laba dawladood xuduudkayga dhirtiina xagga soo gashay dad ba xagga soo galay wayna fiisaal ku soo galaan waa in ismusaafiriyaan halkaas Soomaali maras haye iyadana is dhigtay haye والله ودبات madaxdani mas'uuliyiinteeni ayaana horbooday kooka hal shacabku maraysa marka shacabku والله ودبات waaya haye shabeelle dekad waa ay leedahay noocay doonta ha u ekaato dekedeeda cilmicaan la leedahay official dekad ayay leedahay dekedeeda cilmicaan la leedahay ama xafiis ha ku yaalo ama baraaka ha ku taalo ama yeesan ku oolin sida ay u shaqeeyaan dekedaha Boosaaso iyo Kismaayo iyo oo kale ay ayadoo u shaqeyn doonta state-ku baduu leeyahay dekadna waa leeyahay dekadiisana waa shaqo galaysa hadduu Ilaahay yiraahdo de shalay hadduusan maamul iyo nidaam jirin wuxuu ahaa hagay maanta dawlad ayaa jirta mas'uulka ah insha Allah taala dhawaanna waa shaqo bilaabaysa de waxaan rabnaa dhaqaalaha meesha ka soo baxa inuu kobciyo Hirshabelle ujeedku wax kala ma Hirshabelle inay kobocdo dadkeedu inay dawlad goboleedku inay canshuur iyo dakhli inay soo saarto inay wadooyinka wax ka qabato inay isbitaalada wax ka qabato kulli inta ay waxa xaq u leedahay waajibna ku ah inta ka guduna waxaan eegi doonaa oo isku dhaxwadi doonaa yaasino dadka qurbaha Soomaaliyeed ee yimi ayaynu doonaa habka in sida ay u ababiyaan caruurtooda sida ay u koriyaan ama u kobciyaan tarbiyadooda iyo wanaagooda waxa inta badan soo saara hooyooyinka sax hooyooyinka in badan oo kamid aad bay u fiican haye ilmahoodana waxay mariyaan jidkii toosnaa loogu talagalay waxaan eegi doonaa hooyooyin iyaguna caruurta line kala mariya saa ugu daran oo caruurta markay berito ay khalad galaan ama falal aan loo maartay iyo been ay kamid tahay ay sameeyaan in ciyaalka la eedayo la yiraahdo iyaga waxa xumaanta la yimi laakiin in waalidku waliba hooyada mas'uul ka tahay ayaynu yar biyaamin doonaa sax waxa dhacday islaam ba telefoon boo soo dhacay haye telefoonka markuu soo dhacay ayaa aragtay haye malawa islaam kale xoogay lacag ku leh haye marka ma jeclaysan inay ka qabato haye tiina way dawada telefoonka soo celisay telefoonka ma ku soo celinaysaa haye yarteedu ag fadhida ay hooyo la hadalo waxaad ku tiraahdaa hooyo ma joogto haye waa ilma yar marka waa been cad yartii telefoonka qabatay tirahdo habar yar hooyo ma joogto ma joogto haye islaanti kale marka waxay tiri hooyo xagee jirtaa haye yartii baa intay hooyadeed eegtay waxay tiri hooyo xagee baad jirtaa xagee adeed haye yartu sax bay ku taagan tahay sax waayo hooyadeed kalama ay ballamin ma joogto oo guriga jirta ayuu baxda midna ha oran marka halkaas ka bilaabmaysa bash beentii hooyadu ay ilmaheedii ku abusay bartay bari kuma canaan karto sax marka waxa loo baahan yahay hooyooyinku in tarbiyada ay qaybtoodii awalba lagu yaqiin ay halkii ka sii wadaan oo ilmaha qurbaha marka la yimi ay ka ilaaliyaan beenta ama ay tusaan iyaga oo been ka hadlaya in ilmihiina uu dhageysto qaybtaasna halkaasaynu kaga tegaynaa haye waaye waxaynu ka hadlaynaa dadka mas'uuliyiinta Soomaalida qaar badan oo kamid ah oo aan aaminsanin xilkan uu hayo inuu ummadu hayo
laakiin wuxuu aaminsan yahay ha waxaad ku gaari kartaa meel sare ha iyo maqaam sare iyo sharaf ha adigoo guuloodeeya oo madaxweynahaaga iyo Ah. xukuumaddaada Ah. istusa Ah. oo marba meel Ah. ka hadla haye oo yidhaahda haddii ilaahay ku reeyahay dowladdu waa sidan iyo sidan Ah. annagu sidan iyo sidan Ah. marka guuloodaynta Ah. ayaan dib u eegay sax xildhibaanka sanadkan Ah. somalilan ha xildhibaanka ugu guulodaysan kulwaysan ha ee bariga somalilan ka yimaada Ah. ayaan eegi doonaa haye saleebaan koraa leedha oo salaamaanka hore haye waa nin cajaayiba saleebaan markuu arkay in cali khaliif galeer soo socdo Ah. ayuu isiri meel sii banayso haye dabeetana shir jiraayado fara badan ha ayuu qabanaya haye xaguu ku miisaya Ha. qoluu caayaya Ha. wax aasoo shida ah Ha. waxaa ku abuuray Ha. cali khaliifkaa soo socda oo yaa lagaaga dheerayn meesha yaan lagaaga dheeray Ha. marka imika haddii aadan position sii samaysa ha oo aanu siinaayo ku maqal Ha. oo aanu muuse biixi ku maqal Khatar ka baxay. oo haddii ilaahay ku ri maxamed xaashi ku maqal innaga nala hadli maayo ha waxaan uu duubayo Ha. wuxuu la hadlayaa Ha. siinaanyo iyo maxamed xaashi iyo arrimaha iyo cali khaliif raggaas uu tabinaya Ha. haye marka waxay la gashay Ha. dhowaan waxaa shir qabtay baarlamaanka somalilan Ha. oo ka hadlayay in heshiiska ha somalilan iyo ka dhexeeya khaatumo ha in baarlamaanku ay abruuf gareeyaan Ha. in heshiiskaas Ha. ay ogol yihiin haye dee heshiis in la ogolaada waa wax wanaagsan sax ciddii doonaysa ha heshiis Ha. laakiin baarlamaan le war haddaynu la heshiino qolada aynu wada heshiino ka warrama Ha. waa wax aad u wanaagsan Ha. lama odhan karayo heshiis ma rabno ha waayahay waxaa ku ahaa gudoomiye shirka ha ninka la idhaha baashe baashi ha oo ah ku-xigeenka ha baarlamaanka somalilan sax gudoomiyihii wuu maqnaa markaa waa ka maqnaaba gudoomiye arrinkii baa laisku raacay mar qura haye oo la yidhi war waa arrin wanaagsan oo waa la abruuf gareeyey sax hawsha markay dhammaatay ha saleebaan kooraa hadlay wuxuu ku Haye, leeyahay haye, haye. shirkan wuxuu ahaa baarlamaanku Ha. mid uu soo samaystay Ha. ninka la yidhaahdo haddii ilaahay ku ron yahay oo ka dambeeyey baashe baashi oo uu doonay inuu meel marsado in cali khaliif iyo khaatumo lala heshiiyo Haye. kow tan labaad Ha. marka baarlamaanka guddoomiyaheedu dhoofo Ha. ayunbuu shirar qabtaa ha ya ha eedaasuu soo jeediyey Haye. marka eedda haddaynu dib eegno Ha. baarlamaanka somalilan ha dee sharci buu ku shaqeeya constitution baa meesha ha sharci baa jira marka guddoomiye ku-xigeenka uu shirinayo baarlamaanku isugu yeedho ha haddii aanay ahayn sharci ha isuma yimaadeen badee isma yimaadeen sax haye marka guddoomiyahoo maqan haddii guddoomiye ku-xigeenka uu shir qabto Ha. waa wax dastuurka ogol yahay sax haddii dastuurka ogol yahay ilaa guddoomiyuhu joogay inaan shir la qaban ha saasay u socon lahayd haye xamar markaan iminka eeganay ha wasiiradii la abruuf garanayey Ha. guddoomiyuhu muu joogin ma joogba magaaladuna joogay marka saleebaan horta marka ugu horeysa waxaa wanaagsan inuu sharciga Ah. iyo dastuurka somalilan barto qaybo sax haddaad eegatid dastuurka qodobo aad ku dagaalami Ha. kartid oo tiraahdo number 40 Ha. kuwa lagu dagaalamayo ku jira meel ku qoro ha 71 isna firqadiisa koowaad Ha. waad ku dagaalami kartaa Ha. oo labadaas la dagaal tigtid maalin kasta waxaa kaa maqnaanaysa oo dhibaato kuwii saamaxayey Ha. in la heshiiyo Ha. ee wanaag la dhaliyo Ha. waxaasoo dhan baa la baahaya Haye. imika ugu daraado haye waxaan daawan doonaa Ha. saleebaan ha oo af qalaadna ku dardaraya weliba ha oo le siinayo Ha. laascanadu weyaan Ha. madaxweyne Ha. meel kasta marti somalilan oo dhan Ha. gacantaad ku haysaa Ha. waxaa kuu dhiman qura Ha. in aad dhex geshid Ha. buu hodla meesha Ogaal oo adag kuu dhimani Haye. ma jiraan Haye. marka kelmadda intervention ha ayuu ku sheegaya afka ingiriisiga ha jay bal aynu daawano aad iyo aad baanuna annaga oo ka faa'iidaysanayna aqoonta iyo kartida iyo hufnaanta iyo waxwada lahaanshaha ummadda reer somalilan uu u horseeday madaxweynuhu waxaannu isleennahay madaxweyne hal degmo oo buuhoodle la yidhaahdo yaa maanta u baahan in intervention lagu sameeyo intii kale ee somalilan waa midaysanta soomaalidu waxay ku mahmaahdaa reer curad ba'na ugu filan banaanana ugu filan gacayarayaashaad madaxweyne qaarkoodna way kuugu hiiliyaan siyaasadda qaarkoodna waxaa laga yaabaa meel aad rabtay inaad gaadho inuu ka soo siibto arrin aan caadi ahayn oo waa gulwado caadiya dabeeto ninkaa
xildhibaankay guulodaynaya ha ayaa buuhoodlaa qaylisay haye ayoy haye waa kan buuhoodla farta uu fiiqay ha wuxuu farta u fiiqay ha halkaasun baa idin dhimane ha dee weerar iyo dagaal iyo rabish lala galo iyo ciidamo ha halkaas saasay u turjinteen ha qodaasi ha dabeetana cirka la isla aaday haye marka uu haddana qaylo ku dhuftayoo Ah. wuxuu ku leeyahay Ah. kelmadda intervention Ah. ayaa ay dhibtay Ah. isdhexgelidii waxbaan u jeeday Ah. infection Ah. maaha military in xoog lagu galo Ah. alla moogta sheeko kale ha haye marka haddaad dee shirka jaraa'id badisid ha oo guuladaynta badisid ha marka dambe gacan baa lagu qabanaya sababaa waxaan soo jeedin lahay ha masiirka dadka uu matalayo xildhibaanka u yahay Ha. anigoon lahayn xagga ha raaco iyo xagga ha raaco ha ha noqdo mid uu ku eegayo karaamada dadkiisa sax inta aanu shirka jaraa'id qabin Ha. ha eego karaamada mas-uulka uu la beesha yahay Ha. ama la gobolka yahay Ha. inaanu is odhan bahdal ha si aad silaanya xog hesho waa dhibaato wey waxa wanaagsan mabda aad aaminsan tahay adigu ha inaad maalin walba la soo taagan La soo taagan tahay, laakiin ha. haddaad istiraahid maanta Ha. shaarka cali khaliif gasho ha berrina waxaad gashataa shaarka buuhoodle ha waa dhibaato meel darbaad gelaysaa haye bal isagana intaa ha aynu ku dhaafno Haye. dhinaca guuladaynta haye waayahay marka waxaan idinku nasin doonaa Ha. adiga dadweynahaba Ha. waynu yara xeeqnay soo maha ha hees ha laakiin heesta ha barnaamijkan aan ku soo qaadanay Ha. ciyaar kuma inaan soo qaadan haye markaan eegay ha in sugaantii soomaalidu Ha. iyana ay jar kasii dhacayso Ha. midhihii ha iyo laxankii Ha. oo wax ka dhex qaylinayaan Ha. iyo fanaanintii dhalintii dambe iminka Ha. ayaa waxaan eegi doonaa ha heestii igu midha xumayd ha midhaha ha ee aan iyana daawado ama dhigo inankan soo socda ha ee dhallinyaradii Ha. wuxuu ku heesayaa ha oo uu gabadhii uga heesayaa ha oo heesta magaceeda la Ha. yidhaha iphone igad iphone-kat waa arrin waala waxaa kaloo heesta uu leeyahay Ha. lacagtii aan kuu dhiibaba lacagtaan ku dhiibo shiishad baad ku cabtaa shishad dhaqan xumo haye haye qodhaa xero waxaasnima ammaan gabdheed ammaanta waa la gashay gabdhihii soomaalida midabkeeda dhiinkaa la odhan Ha. jiray garaaryaheeda Garaari. quruxdeeda laga sheekeyn jiray. timahaaga ma la odhan jiray ha ayaa waxay marayaan Ha. wixii aan ku siiyaba dee shiishad baad siisanaysa wallahi heestaas bal waxay adiga iyo dadweynahaba Ha. aynu horta heestaa ku nasan imisaad i tiri iphone igad aan wareerayo walwalaaci dilay imisaad i tiri iphone igad aan wareerayo walwalaaci dilay imisaad lacag tii aan qarsado la orodayo la gashay shiishad shidan imisaad lacag tii aan qarsado la orodayo la gashay shiishad shidan weynaale mahad gabadhan jeclaa hadday daysayo xariif shidan la tegay weynaale mahad gabadhan jeclaa hadday daysayo xariif shidan la tegay war ajaayib caliyo Ya. waa midhahaas waa midho ajaayiba war ninkii sameeyeyow ha ma aha inaad ummadda waxaa usoo jeedisay ajaayib ka ku qaadayow Ha. ma aha inaad adeer waxaa ku qaadid adigu intaasan layna qolada ha waaya baydhaban tegana haye shariif xasan Ha. waa madaxweynaha gobolka Southwest. galbeed koonfureed ha koonfur galbeed meel ha waaya wuxuu ka yahay madaxweyne halkaa madaxweynahaasi haddii uu dhoofo oo uu dubay tago ganacsiga magaalada ka jira oo dhan dukaanada Ha. iyo bakhaarada waa la xidhaa waa la xidhayaaba Ha. ajaayib haye waa maxay sababto lacag buu wadaa maya ha isagii waa bakhaaro iyo dukaana leh inaa lilah haye marka ganacsiga oo dhan isagaa keena saa keenaba dacaskii ma keeni kartid Haye. xanjadii ma keeni kartid Haye. waa lagu qabsanaya waxa lagu leeyahay madaxweynaha alaabtaa iskale haye madaxweynaha laabta saxiibka ice cream dukaan ice cream ma furi kartid Haye. madaxweynaha iskale meel restaurant weyn oo laga shaqeeyo makhaayad weyn Ah. oo cunto laga cuno Ah. cunto casri haddaa istiraha dhig Ah, waxaa laga isagale. madaxweynaha ayaa ku jira business hotel weyn oo la seexdo haddaa istiraha samee madaxweynaha iskale ajaayib waa dhibaato caadi marka adigu basbaaskii baad iibinaysa waa dhibaato marka suuqu waa xidhan yahay dubay markuu tago Ah. telefoon buu kula soo xidhiidhayaayo Ah.
looga warrami maayo xildhibaanadii iyo siyaasadii iyo gobolladii Ha. wuxuu kala hadlayaa Ha. yaa dacis ka keenay Ha. dubai baa sigaar ka keenaya Ha. la socda Ha. qodada turbutaariyada meeday Ha. qodada canshuuraha Ha. xagga xuduudka dhinacaan ka soo gallo Kenya Ha. waa in halkaa isbaaro la dhigaa Ha. Indaalin. Waa una qabatayn. marka nin ganacsata ah Ha. madaxweyne ka dhigo Ha. Waa dhibaatadii leedahay. waa dhibaatada leedahay Ha. waaya waxa dhibaato kale ah Ha. oo aan doonayaan ka hadlo yaasino Ha. afka maygu Ha. maaha afka koowaad ee Soomaalidu ku hadasho Ma bahaba. afka koowaad ee Soomaalidu ku hadasho Ha. ee maxalligii Ha. waa kan aynu ku hadlayno Ha. Oo kan ha. afka mayga dhowr gobol Ha. ayaa lagaga hadlaa Haye. baay iyo bokooli ay ka mid tahay Haye. iyo meelo kale uu gaargaaro Ha. marka af officially idaacad looga hadlo Maaha. maaha Ha. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Ha. afka mayga ma yaqaano dee Ma yaqaano garan maayo ha. Waa nagala mid. لا فرماتشو ها. ولا حسن شيخ ها. ولا شريف شريف شيخ احمد ها. ولا الله نحرس عبد الله يوسف ها. ولا عبد القاسم ولا وحي مدحين صمري ها. لين افكا مايغا ها، قرن دين أي لو هادلو جواب كريم Ma jirto ha. taas marka waxa weeye afka madaxweynaha isku hadlayo Ha. ayaa afka koowaada Haye. waxaan inta badan daawadaa Ha. kilibiyo dad gobolka koonfur galbeed ee Soomaaliya Ha. ka tirsan ama reer Baydhabo Ha. oo doonaya in dawladda federaalka Ha. ay arrimo muhiim ah kala hadlaan Haye. oo ay ka mid tahay gargaar Ha. in lala soo gaaro Ha. inay dadkii dhimanayaan Ha. in dhibaatadan ay ka haysato Ha. in Baydhabo Ha. ay dawladda Sharif Xasan Ha. cadaadis xoog leh ku hayso dadkii markaa waxay ugu soo gudbinayaan dawladdii Ha. afkii mayga Ya garanaya. marka ninkii lamaba fahmin Ha. inuu yahay nin cabanaya Ha. intii la turjumayay Ha. markii qof dhageysto Ha. ayaa mid xoogaa ka yaqaana waraa ninkan wuu cabanayay Aye. ninkii dhimayba dee Lama aragba. intaad turjumaysid Ha. Ya hawshii- arkay. hawshii dhammaataba Haye. marka waxay la quman Ha. in afka koowaad Soomaalidu Ha. dee uu horta keedan u noqdo Keeda u noqdo ha. anigoo ixtiraamaya Ha. oo aad u soo dhaweynaya afka mayga Ha. aniguna asalkayga hore Ha. reer Baydhabo aan lafteeda Ma laftagaan. ha Ma taqaano luqadda. waxaan ahaa Baydhabo Ha. qansax dheere Ha. iyana waan joogay Haye. ufurow Furow. diisoor Dizoor. xawaal barbaar Wala barbar. ha Haye. inta hawaal barbaar garanaysa in adigu aanad ka mid ahayn Ha. ayaa ay garan karta Ma garan karo. in tuuladaa yare hawaal barbaar Ha. xataa aan seexday Ma saxtay. ha Adi laftaada ba. marka anoo ixtiraamaya afka mayga Ha. waxaan dana soo jeedin lahaa Ha. in afka koowaad Ha. ee madaxweynaha iyo dawladda iyo lagu Ay fahmayso. ee officialka inuu noqdo afka Soomaaliga Haye haye. intaasna iyana aan ku dhaafo Haye. waayahay haatana Somaliland iyo Khaatumo Haye. ayaynu eegi doonaa Haye. yaasiin marar badan baad maqashay in Khaatumo iyo Somaliland Ha. ay ku kulmaan meel ay ka mid tahay Dubai iyo Djibouti Sax. shirka ugu dambeeyay Djibouti ayay isku arkeen Haye. dhinac waxaa ka socda Al Khaliif Galayr Haye. dhinaca kalena waxaa ka socda Faysal Ali Waraabe Haye. way heshiiyeen qodobbaa ka soo baxay Haye. qodobada ay ka soo baxay heshiiskoodu Ha. ma aha in arrimihii ay isku hayeen Ha. iyo fakarkii kala duwanaa ee labadooda ka dhexeeyay Ha. ay isu keeneen oo isla afgarteen maaha Haye. waxa weeye waxaa ka soo baxay Ha. in gurmadka abaaraha Ha. ay ka wada qayb galaan Masaakiinta u gurmadaan. wayna sarcaad Wayna sarcaad caadiya. dadkii labada dhinac waa la weerarinaya ma Haye. waxaana waxaa ku baxa kharash fara Haye. badan Haye. saasaa la isaga daba wareegaya Haye. daba wareegaasi Ha. maalin baa la oranaya gurmadkii abaaraha Ha. ayaynu ka wada hadalnay Haye. shirka dambe marka la qaban doono Ha. wuxuu dhici doonaa Ha. iyadoo roob da'ay markaasaa la oran doonaa Ha. go'aamadii ka soo baxay waxaa ka mid Ha. ah roobkii da'ay Ha. xareedii Ha. in la wada qaybsado Riwaayad caadi noqotay. Barto barto. moogtahay Haye. marka horta hawshan waxay socon doontaa Ha. muddo sanada Muddo sanad. Ha. Ku dhow. ayaa lagu jiri doonaa Haye. qodobkana soo runtaa la soo sheegi lahaa waa laga horeeya Waa laga ha. runta waxaa la yidhaha waa qaraadha runta Waa qaraadha, waa qaraadha ha, moogta ha, ha. waayahay Ha. cali baa wuxuu tegey Ha. laascanood Haye. marka laascanood markuu tegey Ha. ayaa waxaan doonayaa inaan ku tuso clip Ha. berigii ay aadka isaga soo horjeedeen Somaliland Ha. ayaa waa tii mar saax dheer Ha. ay ciidamada Somaliland ka saareen Ka saareen, ha. oo xuduud ka tallaabay Ha. taliyihii berigaa ciidanka watay Ha. ayaa telefoon soo diray iminka Cali laftigiisi. alaftigiisa Haye. odaygii eryanayay Ha. ayaa iminka haddana dee sheekadu is bedeshay Ha. telefoon buu soo diraya Haye. marka cali baa wuxuu leeyahay weli miyaad daba joogtaa dee in la heshiiyey miyaad garanay
حاجة تروح أنا قصة دريسة على أساس يوري يا رحت عسير بالبوردر كي كودو بلنا مركز بروح حسستين إن القرآن كي هشينه حوار بيقول لي وربورن أنا داون هرت كليب كاس السلام ورحمة الله وعلى خليف كلامي هذا مركز من صوب بيننا هي بكارس ما هو ما أنت أسافرنا نعيش أي نعضاء هسرا كيف بمش ما شاء الله وما هتسنتهي waxaan eegi doonaa afka qalaad ama af carabi ha noqdo ama af ingiriis ee af soomaaliga isagoo nin mas-uula hadlayo oo ummad soomaaliyeed oo weliba reer miyi u badan ayuu af ingiriis kusoo dardaraya marka mararka qaarkood qofkii waxa ka lumaya ama dadkii waxa ka lumaya ujeedadii u weyneed ee rabay in loo sheego ayaa af ingiriis loogu sheegay af ingiriisigii ayaa loogu sheegay marka way dhaaftay mas-uuliyiinteenu waxaan doonayaa in ay ka wareegaan oo ay joojiyaan caadada xun ee ah inaad af ingiriisi kusoo dhex dardartid iyo af soomaali isku dhex jira dadka aad la hadlaysana maaha ajnabi waa soomaali tusaale waxaan soo qaadan doonaa meel ka mid a soomaaliya ayaa dagaal ka dhacay degmadii dagaal ka dhacay ayaa waxaa lala xidhiidhay taliyihii ciidanka haystay markaa ereyada joogay waxaa la weydiiyey waa maxay sababta meesha maxaa ka dhacay baa la yidhi taliya marka telefoon baa lagu wareysanaya idaacadaha Soomaalida qaar kamid ah marka wuxuu yiri meeshan waxa ka dhacay corruption ilaa 3 qof baa ku dhaawacmay iminkana nabadgelyada gacantan ku dhignay inna lillahi marka meeshan waxa ka dhacay dagaal ay doonayeen yiraahdo marka taliya laftiisa isu muujiyo wuxuu ku leeyahay meeshan corruption baa ka dhacay corruption waa musuqmaasuq way waa qaribay marka afkii meel daran uu la maray ayuu la maray markii dhaweed Saleeban Koore waniga dhaysanay kelmado badan oo Ingiriisi ku jira يا وهدي لها كوري هاي كلمة هذا مركز نقول كده وجهني interpretation بان لو بهاي إن السماء وحلو بيع وقته مركز وحاسو لقطة واد كلمة كسو قادر نسي معنا بدل سمين معنا بدل سمين صح تذكر الصومالي هذا مسؤول تاني هذا الصومال كله الصومال تذكر شيء أنت أيين كلها في الدنيا صح أرنتي راين له أيام كسو حد الدنيا برامج كان ياسينو مركز هره أنت إن الشيء haddii caruur barnaamijkan daawanayso waxaan ka codsanayaa in caruurta aanay u daarin klibka yar ee soo socda waan ka maarmi waayey inaan dadka waaweyn tuso gabadh Soomaaliyeed oo kamid ah gabdhihii 200 ahaa ee la dhoofiyey si ay jaariyada uga noqdaan Sacuudi Arabia shan kamid oo aniga barnaamijyada hore ku sheegnay in la dilay qaarkood lagu joogjoogsanay ciduu doodal ma leh shaqo tagun baa la yidhi ma la kufsaday ma la dilay war lagama hayo qodob baa jira xeer ka mid ah jaamacadda carabtu uu diidayo in ururka jaamacadda carabta dawladaha ka tirsan in ay jaarida noqdaan haddana waynu galnay inagoo jaamacadda carabta ka tirsan waayahay baabuurta taksiyada la yidhaha oo kaliyo ururada jaamacadda carabtu taksiilayaan ma noqon karaan si aan haddana haddaad Dubai tagtid iyo carabaha ma jiro Soomaali taksiilaha waxa la oranayaa ururkii jaamacadda carabta ku tirsantay waayahay jaariyadan waxaad oran weydeen ururkii jaamacadda carabta ayaad ka tirsantay gabadh adeegta ah ayaa dabaq ka siibanaysa waxay u qaylinaysaa qofkii markaasi wadanka keenay ee mas'uulka ka ahaa ee ku qoraa ee ay u shaqeynayso u adeegaysa ayaa video clip ka duubaya iyadoo isdilaysa ilaa uu naxariisto iyadoo ka siibanaysa dabaqa 7aad ee guriga oo aanay cidina u arxamin oo waliba iyadoo wali meeshii ka laalaada laga duubayo lagu ciyaarayo ayaynu dadweynaha u soo gudbin doonaa daawasho wanaagsan علي أرنت الوارين مرجولي ولي بحرانة سلا قبلنا مساجدة والله رقمي sababta ma keenay klibka xooy in lagu waana qaato oo gabdhaheeni aynan u horseedin halaagan oo kale barnaamijkan oo kale intaan ku gudbin doono aad baad maasantahay علي مر لبعض iyo mar saddexaad ba halka aad nagala socoteen waa kaftankii siyaasadda iyo Ali Xaraari waa anigoo ah Yaasiin Ducaali waxaan kaga tagayaa sidaa yahay nabad geli